بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. walaalayaalkan waxaan galaynaa casharkanagii noo soo socday manhajka dowladda ah qaybta luqadda carabiga ah. weliba waxaan gali doonaa hadduu ilaahay idmo leeliyaasha luqadda carabiga ah galaaska koowaad ee dugsi sare. alwaxdatu thaani cutubka labaad ayuu noo marayay. cutubka labaad hadda waxaan galaynaa addarsu thalith casharka saddexaad aqraadu shicri shicirka aqraadkiisa ayaan galaynaa. shicirka waxyaalaha loola dan leeyahay ayaa casharkii saddexaad ayaan galaynaa oo casharkii ugu dambeeyay cutubka labaad. marka hadduu ilaahay idmo casharkaas marka waxaan galaynaa layligiisa ayaan akhrinaynaa. hadduu ilaahay idmo layliyaashii ka soo baxay ayaa akhrin doonaa casharkaas saddexaad oo ku saabsan aqraadu shicri. نشاط 2 نجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية waxaan ka jawaabayn doonaa hadduu ilaahay idmo su-aalahan soo socdo si afka ayaan u jawaabi doonaa. xagga afka ayaan u jawaabi doonaa. xagga afka markuu leeyahay waa marka aan meesha joogno weeye oo ma ahan cashiro guriga laisku weydiinayo laisku dirayo oo guriga lala aadayo ma ahan. kow su-aasha koowaad caddi tiri aqraad ashicri alcarabiy shicirka carabiga aqraadkiisa tiri. waa kanaa marka aqraadka shicirka carabiga laga leeyahay waa badan yahay wax la koobi kara ma ahan. intii u muhiimsaneyd oo noo soo buug noo soo qaaday noola soo qoray ayaan sheegaynaa hadduu ilaahay idmo. aqraadu shicri alcarabiyi kathiiratun minhaa alghazalu waalfakhru waalwasfu waalxikmatu waalrithaa'u waalmadxu waalhijaa. aqraadu shicirka carabiga laga leeyahay waa badan yahay waxaa ka mid ah ghazal wax la yihahdo shukaansi, fakhri faan, alfakhru walwasfu tilmaan, walxikmatu xikmad, walrithaa'u baroor, walmadxu ammaan, walhijaa caay. intaasaa shicirka looga dan leeyahay arrimaha looga dan leeyahay. shicirka muraadkiisa waa intaasba in waxaa weye wax lagu shukaansado iyo in laisku ammaano lagu faantamo. fakhriga ammaan waxaa weeyaan faan weeye fakhriga isku faano. wasfi waxaa weeyaan tilmaan, xikma waxaa xikmad, rithaa baroor, madxi ammaan iyo walhijaa caay. marka fakhriga faankaas iyo madxiga ammaantana waxaa u dhexeeya farqi baa u dhexeeya labadoodaas. hadda fakhru waa faan qof faantamayo weeye, madxina waa ammaan qof la ammaanayo weeye. waxaa u dhexeeya labadooda farqi. number 2 carif tacriifi alghazal shukaansiga tacriifi. shukaansiga tacriifkiisu wuxuu noqonayaa waa kana waa huwa tashabubu binnisaa'i watawadudi ilayhinna. shukaansi waxaa la yihahdaa haweenka oo la isjeclaysiiyo watawadudu ilayhinna iyagoo isjeclaysiiyo gabdhahoo la isjeclaysiiyo oo lala hadlo la sheekaysto waaye hadalla macaan lagu dhaho wanaagsan baa la yihahdaa ghazalka ayuu ku tacriifiyey. wahuwa atashabubu binnisaa'i watawadudi ilayhinna. 3 wadix macna alxikmati xikmada macnaheeda caddee. wahuwa kalaamun saa'ibun ya'tii min mujarabi mutacaayishin maca alaxdaati walwaqaa'ic. waa kalaam toosan oo ka imaanayo tijaabooyinka nolosha. min mujarabi mutacaayishin tijaabooyin nolosha tijaabooyinka ayuu ka imaanayaa. wuxuu waliba ku imaanayaa maca alaxdaati dhacdooyin walwaqaa'ic dhacdooyin dhacay ayuu nolosha tijaabooyinooda u imaanayaa. xikmaddu ayay ku dhalanaysaa. وكان تعريف كيس معنى الحكمة. 4 حدد حدي الفرق فرق حدي بين المدح والرثاء. مدحiga iyo rithaha u dhaxeeya shayga marka la rabo in la ogaado waxa lagu gartaa labada shay markii la kala farqigooda rabo in la ogaado lagu kala xadidi karaa wax la yiraahdo qeexitaan in la tacriifiyo. shayga marka la tacriifiyo shayga kale waad ka garanaysaa marka tacriifkan markuu ka tan kale inuu ka soo horjeedo ayaa garanaysaa. madxu waa kana marka almadxu wa huwa dhikru sifaati alxamiidati lilmamduux. madxi waxaa la yidhaahdaa sifaadka wanaagsan oo lagu sheego lilmamduuxi midka la ammaanayo. midka la ammaanayo lagu sheego weeye sifaad wanaagsan oo la mahdiyey baa la yidhaahdaa. madxu waa ammaanti, mamduuxna midka la ammaanayo weeye. kan wax ammaanayna waxaa la yidhahdaa maadix iyo madxi iyo mamduux. maadix midka wax ammaanaya la yidhaahdaa, madxina waxa weeye ammaantii, mamduuxna midka la ammaanayo weeye. marka waxaa weeye madxi tacriifkiisu waxaan ku sheegnay wahuwa dikru sifaati alxamiidati lilmamduuxi. ama الرثاء baroor ayadu baroortu waxa weeyaan wahuwa dikru maxaasin ilmowtaa. rithaha baroorta waxaa la yihahdaa
وهو ذكر محاسن الموتى dadka dhintay wanaagooda la sheego la xuso ayaa la yiraahdaa risaha marka farqi ku dhaxay waad garatay risaha waxa weeyaan dadka dhintay wanaagyaashooda la tiriyo ayaa la yiraahdaa ayaa ku soo baxay madaxina waxa ku soo baxay sifaad wanaagsan oo lagu sheego ruuxa la amaanayo farqigaas u dhaxeeya halkaas oo baxnay nashaa 3 نأتي بما يضاد الكلمات الآتية waxaan la imaanaynaa erayadan soo socda kuwa ka soo horjeeda نأتي بما يضاد الكلمات الآتية الكلمة waa erayadii hoosteeda ku qoran didahana hoosteeda waxa ku qoran kuwa ka soo horjeeda طلوع الشمس waxa ka soo horjeeda غروب الشمس raxad dhicitaankeeda المدح amaanti weeye waxa ka soo horjeeda الذم caay الكر رجال عليس أيال هذا شيء يقول رجال عليه وحكسر شيء الفر عر يعني لو رجال علينا ولا عرره الإقبال بماشى كقرن كلمة ده وحكسر شيء إدبار شيء سشو إلا شيء سدو البخل بخيل وحكسر شيء السقي الديقسي أيا كسر شيء الجبن فلينمو وحكسر شيء الشجاع جيسي وحكسر شيء وقرت نشاط 4 نذكر ما يرادف الكلمات الآتية هل كان وحن كشيء دونا وحقبت كان أفراد وحن شيء دونا دولا إدمو حسينا رياض صوص عضا هو مرادف كلا ومعناها لا معناه هذا يعني شيء دونا إرجان مش كتير معنيه كيور هو وحكي سور كذا الكلمة هوست حقور إريو مرادف وهنا ومعناه هذا رياض الفضام فضام حويان معنيه سو انفصال الطفل عنقو كقو أوي عن رضاعة الأم لقمده هويديس عنقو لقمده هويديس كقو أو حالي هذا الفضام صورة حالي هذا يدنا معنى هذا منزلة رفيعة ومنزلة سريسة يضطرب رقاقية يتذبذب رقاقية بالمدة يتذبذب رقاقية معنى هاي الغزل ومحي التشبب بالنساء رأس وقاضي غزلك التشبب بالنساء ومعنيه سو نشاط 5 وحقبت كشانات نستعمل الكلمات الآتية في جمل من عندنا ريان صوص عضيان استعمالنا وحان استعمالنا دولا المجملين أنه أردسني أيان استعمالنا كو البخل بخيل البخل بخيل لماذا سيئون ويحنتهي جملة سنجل البخل وها مركو حنقلني أرد ما يسترون معنا له البخل سيء بخيل لماذا ويحنتهي لابو الكرم وناج أيضا الجملة قلنا كرمك الكرم وناج من صفات الإسلام إسلامك تمامه سأيوك مديهي صدح الشجاعة جيس نمدو الشجاعة جيس نمدو في قول الحق هذا الحق أولوها الله بأهاتي جيس نمدو جيس نمدو حياتي هذا الحق أو كوكوشوكو هذا الشيء أنا كبقي أفر ضلوع للشو أيضا الجملة وحنقلنا فائدة له يذكرني ضلوع الشمس صخرا قرحت الألشديد وحي حسوسنا يا بيري وحي حسوسنا يسا قرحت الألشديد صخر نيك اللي أورنشري صخر كبار وحي هاد خانسل اللي أورنشري ولكن صخر أياد أنت مركا وبرورنا يسايو شعر أي أطرنا يسا قرحت الألشديد مركا وحسوسنا يا صخر مركا جيت كنا هو ضلوع عسواي شان غروب بنقلنا غروبنا أي أري جملة قلنا وأذكره وأن حص يابي تري نيك اللي أورنشري صخري بيتك قيبتي سكالوي لغروب كل غروب الشمس قرح دعيتان كستا وان حص يابي كل ذا قرح دعيتان كستا وحان حص يابي تري نيك اللي صخر أيا حص يابي مرنا ما إلو بي أي تري نشاط 6 نكتب البيت الآتية نثرا بيت كان سو سocdo waxaan qoraynaa nathri ahaan waan qoraynaa waa shicir waxa loo qorayaa nathri waa kana fa innaka shamsun wal muluku kawakibun إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب وحكولي هاي وعدو حتى هاي بير شاعركي وترنا يا بقر أيو ترنا يا فإنك عدو شمس قرح باتاي بقرو والملوك بقرات كلام كواكب واحد غير يرى بقرات كلا سهر واحد غير يرى لكن قرح وين أيها تاي بيقولي هاي إذا طلعت قرح دي هدي دلته لم يبدو مموقنيو منهن حقو ذا كوكب حدق واحد يا كم مغني هذا مرة صوب بحذي صوب مقطع وحن كلا لما أركي بقرر الشيء أنا يقولي هاي سيدا قرح هذا مركز صار للاطة لا أركينين حدقها ولي بحدقه شوغان هذا حدقها ما أنت وين شوغان
waxaa qarinayo qoraxda dhalashadeeda ayaa qarinayo iftiinka ayaa baabi'inayso markaas waxaan ka qaadanaynaa marka xidiguhu inay habeen iyo maalinba ay joogaan oo baabi'inaya iftiinka qoraxda marka qoraxda inta joogto xidiguhu ma muuqanayaan laakiin haddii adigu tagtid xidiguhu waa iska imaanayaan meesha marka haddii adigu ka baxdina xidiguhu waa iska imaan laakiin hadda inta adigu joogtid boqoradan kale waxma ahan buu leeyahay marka ujeedkana waxa weeyaan nasrigii waa kana yaquulu wuxuu leeyahay anta shamsun fii duhuurika wa intishaarika wa quwatika waalmuluuku alaakhariina nujuumun sagiiratun waidaa dalacat ishamsu ikhtafat innujuumu waxaa tahay buu leeyahay qorax baa tahay fii duhuurika muuqashadaada wa intishaarika iyo ballaarnimadaada iyo faafitaankaaga waasicnimadaada iyo quwatika awooddaada waalmuluuku boqorada alaakhariina soo harana nujuumun waa xidigo sagiiratun yar waidaa dalacat ishamsu ikhtafat innujuum qoraxda haddii dhalatana xidiguhu waa iska qarsoomayaanoo xidiguhu inta madowga iyo mugdiga jooga ayay soo muuqanayaan buu yidhi halkaas uga baxaynaa qaybta waxaan galaynaa waxaa weeyaan waa qiimeyn waaye oo casharadii su-aalo hore oo lasoo qaatay qaybo ka mid a lagu qiimeynayo linata'akad waxaan hubinaya min alijaabati jawaabta alcasilati ayaan ku hubinaa su-aalaha taqwiim ilaati qiimeynta soo socda ayaan ka hubinaynaa awalan waa doorasho erayadan soo socda ku waxaa weeyaan waa ereyo laga dooranaya midka saxda ah oo ku baxayo doorasho alif iyo ba iyo jim saas ku socdanay deel kuwa saxda marka qaadana kuwii kale waan ka jarnay waan ka reebnay kuwa saxda ah ayaan soo qornay أولا نختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية wuxuu ku leeyahay waxaan dooraynaa marka hore jawaabta saxda ah kuwaan soo socda kuwa bedelka ka ah kow aladabu huwa adabku waxa weeyaan baan ka dooranay kalaamun baliiqun mu'atharun lahu 4 arkaanin waa kalaam xeel dheer oo aftahan ah oo saameyn leh mu'atharun saameyn leh lahu 4 arkaan 4 rugni buu leeyahay horaan soo qaadanay adabka arkaantiisa marka baan ka dooranay marka kuwa badan bay ahaayeen baadaas ayaan ka dooranay labo alcaatifatu hiya caadifadu waa maxay waxaan ka dooranay marka iyadana doorashaan ka qaadanay jim ayaan ka dooranay ruknun min arkaanil adab ayaan ka dooranay saddex alkhayaalu huwa khayaalku waxa weeyaan alif ayaan ka dooranay asagana suuratun khayaaliyatun yaraahaa ashaaciru cinda qowli shicr waa suuro muuqaal oo khayaali ah mala awaal ah uu arkayo gabyaaga markuu tirinayo shicirka agtiisa uu tirinayo uu arkayo weeye baa la yiraahdaa khayaali asna kaasaan ka dooranay afar ay mima yali laysa min aqraadi diraasati aladab kuwan soo socda keebaan ka mid ahayn barashada adabka diraasatul adab waxaan usoo qaadanay intii ahaayeen waxaa marka ka mid ahayn alqarad alqadaa'i ayaan ka mid ahayn kuwan soo socda mid ka doora ku leeyahay aan ka mid ahayn aqraad ka mid ahayn diraasatul adab القرض القضائي أيا كمدا وحان كمدا هين جيم أي حلينا نمبر 5 عفوا نمبر 5 كل مما يلي من أغراض الشعر إلا دمان وحان سو سocdo dhamaantood soo socdo waxa weeyaan أغراض الشعر ay ka tirsan إلا mooyaane baan ka dooranay marka tijaaro أغراض الشعر kamid ma ahayn tijaarada ثانيا نذكر ما يرادف الكلمات الآتية waxaan sheegaynaa erayan soo socda kuwada la midka ah kow alaxdaath dhacdooyin judadun ayaa la mid ah erayadaas axdaadka waxaa la mid ah judad axdaad waxyaalaha cusub la yiraahdo judadna waxyaalaha cusub la yiraahdo waa jamac weeye mufrad axdaad mufradkiisna waa xadath weeye judadna waa jamac mufradkiisu waa jadiid labo alqarad waxaa la mid ah alhadaf baa la mid ah ujeedo qarad waxaa la mid ah alhadaf ujeedo صدح شتى كلا تكسن متفرق كلا تكسن أنا سكو إيمانيني أفر العصر وأري معنى بدن لكن معنى هذا مركن لتشي ده أرياضة 10 كان كسو قادرني وحويان وزمن الزمن العصر الزمن شن المتعة راحة لذة راحة أو معان وضوء الله استعماله واسكميت متعة لذة معان لح ساكت وحلميدا صامت ساكت وحلميدا آمسان صامت آمسان تضبط شعر تمثيلي وحلميدا شعر مسرحي وراسو قادني سديد وحلميدا شعر ملحمي وحلميدا ereygan kale shicrun qasasiyun ayaa la mid ah halkaas ay baxnay ereyga la midka ah muraadifka la ahaa la midka ahaa halkaas uga baxnay
halka marka walaalayaal waxaan galaynaa hadduu ilaahay idmo ثالثا midka saddexaad na'tii bimaa yudaadu alkalimaati alaatiyati waxaan la imaanaynaa erayadan soo socda kuwa ka soo horjeeda antiga la ah ayaan halkan ka qaadanaynaa kow aljahlu jahli waxaa ka soo horjeeda alcilmu ayaa ka soo horjeeda labo alislaam waxaa ka soo horjeeda kufrun gaalnimo saddex annuuru nuur waxaa ka soo horjeeda oo iftiin ah dhalaamun mugdi ayaa ka soo horjeeda afar aziyaadatu ziyaado waxaa ka soo horjeeda annuqsaanu nuqsaan ayaa ka soo horjeeda shan bakaa wuu ooyey waxaa ka soo horjeeda oohitaanka waxaa ka soo horjeeda daxika wuu qoslay ayaa ka soo horjeeda raabican midka afaraad ندخل وانقلينا الكلمات الآتية في جملة مفيد وحنقلينا ريان صوص عضو جملة فائدة له وانقلينا ومفردات ري وحسكاي ميلس كي يالو معنا لهن لكن مركب ريك اللوجية ري فائدة له أيون غنيا كو شتا كلفك شتانا وحا كلفك هذا وانسكو وين ما بيننا وحا لحظة نضع waxa ayaa aad u kala fog buu ku leeyahay shataana ma baynana waxa dhaxdanada ah ayaa aad u kala fog buu ku leeyahay labo alfidaam waa gogoitaan hore soo qaadanay fidaamu radiici midka waxa nuugayo go'itaankiisu fil islaam islaamnimada fiigiisa sanataan laba sano weeye ilmaha go'itaankiisu naaska nuugayo waxa weeyaan islaamka naaska oo iska go'ayo sanataan laba sano weeye ujeedkanagu waa fidaamkaas jumlo gelinay والرضيع بأنقينا في فضام الرضيع في الإسلام سنتان صدح درس أيام عشان وقرنا وعنقينا إري فائدة له درس الطالب أرض يقوح برت العلم أي برتي شن أفر ضحك وقصلي أصلا وحنقلنا إري فائدة له يعني قلنا ضحك وقصلي علينا الطالب أرض أي قصلي نمبر شن الشعر وقبي الشعر قبل كلام له وزن وقافية أمجد كنا مركو حويان إن أنقلنه إري فائدة له مركو حان الشعر قبل كلام وهذا له وزن له ميزان وقافية له مال وكهورسنا له وقافية هورسنا له وكهورسنا خامسا مثل شناد كانوا حقلنا ليلة شناد وانقلنا نحول وان بدلنا كما في المثال الأول مثالك sidoo hore ku sugan yahay ayaan bedelaynaa erayadan soo socda waan bedelaynaa taxwiil ayaan ku sameeynaa warogeynaa waa kana at-talib al-mujtahid yanjahu ardayga dadaalaya wuu guuleysanayaa waan bedelaynaa marka yanjahu at-talib al-mujtahid yanjahu wuu guuleysanayaa at-talib ardayga al-mujtahid dadaalaya marka hawayaan marka hore jumlada waxay ku bilaabanaysaa ismiyo kabacdina marka la bedelayo waxa loo bedelayaa waxa lagu bilaabayaa jumlada ficliya ayaa lagu bilaabayaa ficilka marka meesha ku jira ayaa la soo hormarinayaa markasta marka horena wuxuu ku bilaabanayaa ism ayuu ku bilaabanayaa jumla ismi ayuu ku bilaabanayaa marka saas weeye marka hore at-talib al-mujtahid jumlada ismiya ku bilowday ficilkii u dambeeyay yanjaxuna wakaas buu ahaa kabacdi yanjaxuna soo hormarinaynaa markasta ficilkun baa la soo hormarin marka الطالب المجتهد ardayga dadaalaya yanjaxu wuu guuleysanayaa waa kana marka waan xawilnay waan kala rognay yanjaxu wuu guuleysanayaa الطالب ardayga المجتهد dadaalaya labo المعلم معلمك يشرح الدرس عشرك ayuu sharaxayaa waxaan bedelinaa waa kana yashraxu wuu sharaxayaa المعلم معلمك الدرس ayuu sharaxayaa cashirka معلمku wuxuu sharaxayaa cashirka saddex الطالب ardayga يكتب وقرية الدرس عشرك يكتب وقرية الطالب أرضي الدرس عشرك أي قرية أفر عائشة تطبخ ويكرنسا الطعام عنتظر وكان أيضا مرك تطبخ ويكرنسا عائشة الطعام أي كرنسا عائشة عنتظر أي كرنسا نمبر شن فائزة ترسم ويقريسا خريطة ماب فايسو waxay qoraysaa map ay qoraysaa mapka khariirada ay qoraysaa waa kana markan bedelayna tarsum way qoraysaa faiso khariidatun map ay qoraysaa ay noqoto saadisan waxaan galaynaa
layliga lixaad oo cashirka ku jira ayaan galaynaa. naatii waa la imaanaynaa bimufradaati ljumuuci jamacyadan mufradadeeda ayaan la imaanaynaa alaatiyada soo socda. jamacyadan meesha ku qoran waxaan la imaanaynaa mufradaadkiisa ayaan la imaanaynaa jamacyadan soo socda. kow axdaath waa dhacdooyin mufradkiisu waa xadath dhacdo. labo waqaa'ic waxyaalaha dhacaya la yihahdaa isna waa dhacdooyin mufradkiisu waqiicatun waa dhacdo. saddex shataa kala fog waa jamac mufradkiisu waxaa weeyaan shitiit weeye, shitiit ayaa mufradkiisu noqonaya shitiitun. afar cusuur waa casriyaalo mufradkiisu wuxuu noqonayaa casrun casri. shan anshidatun waxqabad mufradkiisu wuxuu noqonayaa nashaatun waxqabad. lix madaaris waa iskuulo ama malcamado meel wax lagu barto mufradkiisu wuxuu noqonayaa madarasatu iskuul. toddobo aqlaamun qalimaan mufradkiisu wuxuu noqonayaa qalamun qalin ayuu noqonayaa. sideed kutubun waa buugaag kitaabun buug ayuu noqonayaa ama wixii wax lagu qoraa la yihahdaa kutub la yihahdaa ama kitaabta weyn cilmiga ha noqdo ama kuwan kale. sagaal kharaa'idun maababka ku sawiran khariidada adduunka ku sawiran yihiin jamci weeye mufradkiisu waxaa weeyaan khariidatun maab. kharaa'idna maabyaalo khariidatun maab ayuu noqonayaa. marka cashirnagii waxaa weye halkaas inoogu egyahay cutubkii labaad cashirkii saddexaad halkaas ku dhammaaday. insha allahu dadka walaalaha iyaga ah oo cashirka la socday waxaan ka codsanaynaa laagta inay noo saaraan, kuwa ku cusubna hadduu ilaahay idmo subscribe-kana noo saaraan si uu usoo gaaro cashirada dambe aan soo dhigi doono oo kala duwan hadduu ilaahay idmo oo form 1 iyo form 2 iyo form 3 iyo form 4 isku jira. insha allahu dadaalaan samayn doonaa idinkuna nagu dhiirigeliyo laagta iyo hadduu ilaahay kusoo geliya iyo subscribe-ka nagu garab siiya hadduu ilaahay idmo. wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wa ila alliqaa'i alaakhar.